Assalaamu calaykum daawadayaal. Muuqaalkeena maanta oo ah mid xiiso gooni ah leh ayaan ku sharaxnaa filim comedian Chinese ah oo lagu magacaabo Hello Mr. Billionaire. Filimkan oo la sameeyay 2018 ayaa ku saabsan wiil dhalinyaro ah oo lacag 2 bilyan ah ku qarash gareeyay muddo 30 maalmood gudaheed ah. Daawasho wacan. Wang Duyu oo 37 jir ah ayaa goolhayo ah kooxda Danshan ee ka ciyaarta heerka hoose horyaalka Shiinaha, kaasoo horumar badan ka sameeyay kubadda cagta sanadihii la soo dhaafay, isagoo markii dambe qaniinay ciyaaryahan ka tirsan kooxda ay la ciyaarayeen waqtigaas, waxaana laga saaray ciyaarta isagoo qaatay kaar cas ama roose. Mr. Du ayaa u ciyaarayay koox gabdha ah isagoo iska dhigayay gabadh. Waxaa soo wacay Mr. Chin oo tababaro u ah koox ka soo horjeeday oo ay isla ciyaari rabeen, wuxuuna u maleeyay inuu ku biiri doono kooxdiisa, balse arrinku sidaa wuu ka duwanaa oo wuxuu ku dhahay lacag ayaan ku siinayaa ee goolasha ha qabanin. Balse Du waa uu iska diiday inuu khiyaano kooxdiisa, wuxuuna u sheegay inuusan ogolaan doonin xitaa hal gool. Maalintii ciyaarta markii la gaaray, Du ayaa qabtay kaliya hal banooni oo lagu soo tuuray, waxaana ka dhashay 5 gool. Kooxdii kale ayaa kor u qaaday iyagoo u dabaaldegay inuu si fudud ku khasaariyo kooxdiisa, balse ula kac kama ahayn. Kadib kooxda ayaa laga caydiyay, isagoo raba inuu gurigiisa ka guuro ayaa waxa uu yimid saaxiibkiisii kooxda oo lagu magacaabo Jiang Wan, waxayna isku soo raaceen banaanka, wuxuuna u sheegay inuu kala hadli doono tababaraha dibna ugu soo laaban doono kooxda. Balse tababaraha kooxda ayaan waxiisa u haynin in uu Du dib ugu soo celiyo kooxda, isagoo u sheegay in xawayaanka eeyga uu ka fiican yahay Du uuna gashan doono goosha. Saaxiibkiis ayaana tababaraha u sheegay inuu kooxda ka tagi doono haddii saaxiibkiis dib loogu soo celin waayo. Tababaraha ayaa qoslay una sheegay inuu isna raaco, ayna kooxda farxad weyn u tahay bixitaankeenu. Intii ay guriga u soo socdeen ayaa waxay ka istaageen nalka samafaraha, balse nin ayaa iska dhigay in ay gaariga ku dhufteen. Ninka ayaa diiday inuu qirto in ay jilin ka tahay oo aysan ku dhufan gaariga. Kadib intii isagii dhamaa qabteen ayay ku tirtireen muraayadda gaariga. Naag lagu magacaabo Shin Shu ayaa aragtay, waxayna wacday booliska iyadoo mawlkeeda ku duubaysay wax walba ay sameynayeen. Waxayna isugu wacday dadkii meesha ka agdhowaa si ay markhaati uga noqdaan, waxaana labadoodii la dhigay xabsiga, iyaga oo markii dambe uu soo damiintay Mr. Chin isagoo soo saaray gaarigiisa, wuxuuna u sheegay in uu Du ciyaari doonin banooni dambe, wuxuuna u soo waday xafiiska, waxaana albaabka lagu celiyay Du saaxiibkiis. Du ayaa la baray 2 nin oo ka socda mashruuca Shanmin. Nin ayaa u sharaxay in Du awowgiis ay walaalo ahaayeen, kaas oo la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay isagoo dhintay bishii la soo dhaantay. Qofka kaliya dhaxalka la wareegayana uu isaga yahay, balse looga baahan yahay inuu imtixaanka ka gudbo. Imtixaanka laga qaadayay Mr. Du ayaa awowgiis labaad uu fiideo ku sharaxay inta uusan dhiman. Shardiga ayaa ah in Du uu qarash gareeyo 2 bilyan oo yan oo lacagta Shiinaha ah muddo 1 bil ah. Hadduu ku guulaystana uu heli doono inta hartay oo ah 3 bilyan oo yan. Waxaa jira shuruudo ah in lacagta uu si sharci ah u qarash gareeyo. Marka muddada bishaha ay dhammaato, lama rabo in wax hanti ah oo la taaban karo ay u soo hadho. Lacagta ma sadaqayn karo, lacagta oo dhanna waa inuu isticmaalaa. 100 qof waa uu shaqaalaysiin karaa, balse waa inaysan u qaban adeegyo gaar ah. Alaab qaali ah ma jajabin karo, alaabna qiimahooda saxda ah ka badan kuma soo iibsan karo. Sidoo kale qorshahan waa inuusan qofna la wadaagin. Haddii uusan ka soo bixi karin imtixaanka, waxaa la siiyay option ah in uu qaato 10 bilyan uuna iska tago, ama uu aqbalo imtixaanka. Haddii uu ku guulaysan waayana uu waxba helaynin. Du ayaa aqbalay, waxaana loo sheegay in Mr. Chin uu bisha soo socota la socon doono dhaqdhaqaaqiisa mar walba si uu u xaqiijiyo in uu hoggaansamay shuruucda, isagoo ku daray gabadh xisaabiyihiisa ah. Gabadhan xisaabiyaha ayaa ah gabadhii fiidiyowga ka duubaysay oo sababta u ahayd inuu xabsiga galo. Wayna iska diiday, balse Du ayaa go'aansaday in ay la shaqayso si uu uga arguto. Intaa kadib, Du iyo saaxiibkiis ayaa isku soo raacay si ay u arkaan lacagta, wayna suuxeen markii ay arkeen lacagta tira badnaanteeda. Waxay bangiga ka soo baxeen iyagoo wata boorsooyin lacag ah, waxayna horey ka bilaabeen inay qarash gareeyaan lacagta, iyagoo ka bilaabay inay shaqaalaysiiyaan waardiyihii bangiga, iyagoo u ballan qaaday mushahar fiican. Waxay soo kireysteen baabuur qaali ah, isagoo soo aaday kooxdiisii hore ee banooniga, wuxuuna ciyaartooyda u sheegay inuu ka ciyaarsiin doono horyaalka heerka koobaad, uuna u dhisi doono garoon fiican. Kooxda ayaa rumaysan waday taajirnimadiisa, wayna ku qosleen. Intaa kadib, Du ayaa garoonka ku dhex daadiyay cagaf lacag ah. Kadib ciyaartooydii oo dhan ayaa soo wada raacay, waxayna soo fuuleen baabuurtiisa, balse asagu wuxuu baabuur gooni ah la soo fuulay gabadhii xisaabiyaha ahayd, isagoo isku dayay inuu xodxoto, balse waxay u sheegtay inay leedahay saaxiib aad u fiican oo aan dayninin lacagta. Waxay imaadeen hotel aad qaali ah. Du ayaana la hadlay maamulaha,
wuxuuna u sheegay inuu siin doono lacag fiican uuna ka kirayo hoteelka muddo 1 bil ah. Maamulaha ayaa ogolaaday dalabka Dhu wuxuuna u waday qolka cashada oo ay ku wada casheeyeen. Arrimahan oo dhan ayaa ka mid ah shuruudda oo waa la ogol yahay inuu shaqaalihiisa lacagta ku qarash garayn karo. Master Dhu ayaa iclaamiyay inuu furi doono kambani maalgelin ah, maamulahana uu ka dhigi doono saaxiibkiis. Intaa wixii ka dambeeyay Master Dhu ayaa ku qarash gareeyay lacag ka badan 1 milyan, timo jarasho, dhar alaab iyo gawaari kira ah. Waxaa imaaday gabadha xisaabiyaha saaxiibkeed, taas oo hore ugu sheegtay in saaxiibkeed lacagta uusan qiimeyn. Dhu ayaa u taagay khamri, balse wuu iska diiday inuu cabo khamriga. Markaas ayuu Dhu soo qaaday lacag aad u tiro badan oo maskaxdiisa ka weyn. Markan wuxuu ogolaaday inuu cabo khamriga, sidoo kale wuxuu ogolaaday inuu uga shaqeeyo beertiisa, balse gabadha xisaabiyaha ah ayaa la yaabtay oo ka niyad jabtay saaxiibkeed, wayna ka tagtay. Muddo ka bacdi, Dhu ayaa kulan la yeeshay kooxda ka shaqeynaysay kambanigiisa cusub, wuxuuna u sheegay in ay maalgeliyaan warshadaha gobolkooda sii dhacayo, kuwaas oo laga yaabo in waqti dhow ay suuqa ka baxaan. Waxaa u soo galay nin ordaya oo raba in uu lacag ku helo hal abuur uu la yimid oo ah inuu soo saaray mashiin kuu ogolaanaya in aad biyaha ku dabaalato adiga oo bariga jooga. Wuxuuna siiyay lacag. Markan waxa uu dhammaan shaqaalihiisii weydiiyay ma jiraa qof leh riyo oo raba in uu mar uun u rumowdo si uu ugu hirgeliyo. Maalintii ku xigtay, isaga oo masaaj loo sameynayo, Shaasha oo gabadha masaajka u sameynaysay ayaa ku tiri, waxaan rabaa in aad hal habeen ila seexato oo aysan ka yeelayn in uu ka diido. Waxaa u soo gashay gabadhii xisaabiyaha ahayd, waxayna u sheegtay in uu kulan la leeyahay kooxda mashruuca kor ka maamulaysa, goobtuna ay tahay garoonka lagu ciyaaro golofka. Wuxuuna goobta ku arkay Shaasha, wuxuuna u fahmay in ay u soo direen Master Chin iyo saaxiibkiis oo ah madaxda mashruuca si uu ugu dhaco imtixaanka. Waxa uu labadii nin ku marti qaaday qada sharaf. Markan wuxuu go'aansaday in ganacsade weyn oo lagu magacaabo Master Lafita uu keeno China uuna la qadeeyo, iyagoo ay kala turjumayso Miss Shai ayaa wuxuu weydiiyay inuu u sheego maalgelintii ugu xumeed maadaama uu rabo inuu qasaaro lacag badan, balse Lafita ayaa u arkay meel ka dhac maadaama oo kaliya uu ka shaqeeyo maalgelinta guuleysatay oo uusan qasaaro ka shaqeynin. Wuuna iska tegay isagoo aan cuntadii taaban. Sidoo kale Shai ayaa ka xanaaqday, wayna ka tagtay. Dhu ayaa soo daba kacay isagoo baabuurkiisa wata, isagoo aan rabin in ay ka tagto maadaama kambani kasta oo ay u shaqeyso uu muslifo, isna uu rabo inuu lacagta badan qasaariyo. Dhu ayaa sii waday inuu lacagta u qarash gareeyo siyaabo kala duwan, iyadoo wax walba ay u qabanayeen shaqaale tiro badani, balse waxaa loo sheegay war murug geliyay oo ah in maalgelin kasta uu sameeyay si uu lacagta u guba ay guuleysteen, ayna soo saareen lacag fara badan, isagoo aad uga carooday. Chin iyo Lai ayaa aad ugu qoslay iyagoo ka fiirsanaya TV-ga sida uu lacagta u isticmaalayay. Dhu ayaa ku qarway isagoo lacagaha gubaya oo imtixaankiina ku dhacay, balse waxaa mar qura hurdada ka kiciyay saaxiibkiis oo u sheegay in uu shaqaalaysiiyay nin uu waday. Dhu ayaa markuu arkay la dhacay, wuuna shaqaalaysiiyay isagoo ka helay fikrado badan. Dhanka kale, Shai ayaa kaligeed u dabaaldegaysa dhalashadeedii, waxaana u yimid saaxiibkeed oo ay xanaaq ku kala maqnaayeen. Waxa uu cunis ku bilaabay keegeedii isagoo aan ogolaasho weydiisan, waxayna wejiga uga dhufatay keegii iyadoo u saartay bannaanka. Waxay u tagtay Master Dhu wuxuuna u sheegay inuu arrimo shaqo cawada kala hadlaynin, taas beddelkeedana uu haayo surprise. Waxaana cirka isqabsaday iftiinka blue light-ka uuna uga dhigay hambalyo dhalashadeeda. Waxayna u sheegtay in aysan xiriir yeelan karin, balse waxay ku aragtay sawiradeeda oo ku dhagan darbiyada magaalada, taas oo uu ku dhajay Master Dhu si uu u siiyo fursad ay ugu soo dhawaato. Wuxuuna sidoo kale TV saaray sawirkeeda, taas oo ka dhigtay qof caan ah oo dadku markay arkaan ay sawirro la galaan. Miss Shai ayaa wacday Master Dhu, waxayna ka codsatay inuu ka fujiyo sawiradeeda, balse wuu ku jaray taleefanka. Waxay soo raacday taxi iyadoo wejigeeda qarinaysa, waxayna aragtay ninkii hadda ka hor iska dhigayay in Dhu uu baabuurka ku dhuftay oo ay fiidiyowga ka duubtay isagoo falkii oo kala sameynaya. Uu filimku sidaas ku sii socdaba, gabagabadii Dhu ayaa waxaa u soo dhacay kor, waxaana la tusiyay qof buur laga tuurayo, waxaana loo sheegay in saaxiibtiis iyana laga tuuri doono buurta haddii uusan dhiibin 10 milyan inta aan la gaarin waqtiga loo qabtay oo ah 6. Dhu ayaa xaaladdu ku xumaatay, haddii uu bixiyo lacagta waxa uu ku dhacayaa imtixaanka, waxa uuna weyn doonaa lacagtii faraha badnayd, balse waxa uusan ogeyn in ay tahay tani tijaabadii ugu dambeysay. Waxaana loogu talagalay in uu caddeeyo in uusan nafta bini'aadamka ka jeclayn lacagta, haddii uu lacagta bixiyana uu ku baasayo imtixaanka. Afduubaha ayaa iska dhigayay Master Chin. Dhu ayaa iska baashaalayay isagoo heesaya. Markii waqtigii la gaaray,
Jin ayaa quustay oo iska bixi rabay ayaa wuxuu arkay Duyu oo jaranjarada la fadhiya lacagtii oo ooynaya waana loo sacabiyay isagoo loogu hambaliyay in uu ku guuleystay imtixaankii. Muddo dheer kadib Master Duyu iyo xaaskiisa oo uur leh ayaa ka soo laabtay dalxiis ay adduunka ku soo marayeen. Halkeena maanta intaas ayuu nooga egyahay. fadlan daawada subscribe noo saar janaalka, like tii share tana hanaga ilaawin. mahadsanid.